waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee sheekadii xiisaha badneed dhimasho ayaan ka xigaa in aan dib kuu soo jeclaa ogobay jaleecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuna egmada qiyaasliyo ma abaado ma ilaado lagamana adkayste ma abaado ma ilaado lagamana adkayste dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacad ilaahay dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacad ilaahay midna lama ilaawe halayninaya midna lama ilaawe halayninaya Anisa iyadoo ordaysa waxaa arkay niman meel ku qayilaya oo degan isla xaafadda ay degan tahay Anisa way qabteen Anisa waxay maagtay inay iska dhigto gabar aan la aqoonin laakiin nimanka qayilayay way ka shakiyeen gabadha neef tuuraysa cagaheedana ka socda dhiiga waxay tiri waxaan ka soo baxsaday niman kufsi ii geysan rabay nimanka ma dareensana in uu dhalay ninka xaafadda ugu taajirsan gabadhan haddii ay qaban lahaayeen waa hubaal in maalmo badan jaadkooda laga bixin lahaa hadalka gabadha ayay rumaysteen Anisa waxaa la weydiiyay xaafadda ay degan tahay waxayna sheegatay xaafad gabar ay isku fasal ahaan jireen dugsiga sare nimankii mid ka mid ah ayaa sagootiyay sii dhaweeyay Anisa si nabad ah waxay ku gaartay guriga gabadha ay isku fasalka ahaayeen waana xilli dambe habeenka Anisa waxay la seexatay saaxiibteeda aroortii hore ayay Anisa ku soo kalahday shirkadda isgaarsiinta ee barakaad hadda loo yaqaano Hormuud maadaama adeerkeedu uu ka ahaa maamule adeerka weli ma aysan soo gaarin in Anisa xalay soo dhuumatay oo ay tahay baxsad Anisa adeerkeeda ayay ka cusatay lacag dhan $500 si hagar la'aan ah ayuu adeerka lacagta u siiyay Anisa mid ka mid ah hoteelada ku yaala suuqa Bakaaraha ayay iska degtay si qarsoodi ah cidina aan ka warhaynin dhanka kale waalidka Anisa kuma baraarugsana in gabadhooda xalay saqdii dhexe baxsatay albaabka gurigeeda ayay garaacaan waxayna dhahaan soo bax oo qubayso waalidka waxay u fahmeen Anisa sababta ay guriga uga soo bixi laadahay in ay weli xanaaqsan tahay ilaa laga gaaro barqadii waalidka Anisa shaki kuma dhalan mid ka mid ah dadka deriska ayaa wuxuu yimid guriga Anisa wuxuuna wareystay in uu xalay u soo dhacay tuug iyo in kale wuxuu yiri waxaan arkay dhiig ilaa iyo jidka daadsan marka waxaan is iri amureerkan xalay tuug u soo dhacay waalidka Anisa wuxuu jibiyay qolkii ay deganeed mana ku jirto Anisa qolka sariirta waxaa saarnaa warqad fariin ah oo ku socota waalidka warqadii ayay aqriyeen kadibna waxay bilaabeen in boosteejo kasta oo ay ka baxaan gawaarida safarka ah qof loo diro la raadiyo Anisa halka Anisa aabaheed uu ku amray mooryaanta in ay dilaan haddii ay arkaan Ridwaan Anisa waxay wacatay shirkadda barakaad waxayna ka codsatay in nambarka xilligaasi gurigooda soo wacay la siiyo micnaha talka uu ka soo wacay Ridwaan habeenkii ugu dambeeyay in la siiyo waxay isku dabcisay wiilka u fadhiyay qaybtaasi shirkadda wuu u beerjilaacay kadibna wuxuu siiyay teleefoonka xilligaasi soo wacay Anisa markaan way faraxsan tahay waxay heshay nambarka uu hadda ka hor ka soo wacay Ridwaan laakiin su'aasha waxay tahay ma heli doontaa nambarkaas
intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtii 3 ee sheekadii xiisaha badneed dhimasho ayaan ka xigaa in aan dib kuu soo jeclaado la soco qeybaha dambe.